maalinta koowaad waxaynu aqoonsanaynaa qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland 26 Juun. maalinta 18 Mayna waxaynu aqoonsanaynaa maalintii aynu soo kicinay cadawgii Soomaaliya. jinsiyadda la yiraahdo Somaliland waa jinsiyad qeexan oo dastuurkeenu qeexay kii xornimada lagu siiyay 26 Juun 1960. qofku marka uu sheegto ninka siyaasiga ah ee doonaya dal inuu hogaamiyo jinsiyadiisu way ka qaldan tahay wuu luusan yahay. 26 Juun iyo 1 July 26 Juun waynu soo qeexnay oo waa maalintii aynu xornimada qaadanay ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay xornimada qaadatay 1 July. horta waa maalintii layna qabsaday maaha maalin aynu midownay maaha waa maalin layna qabsaday. hawada aad maqashay iyo 252 iyo lambarada aynu isticmaalay aynu leenahay dhammaanteed waa wixii Soomaaliland wax ay leeyihiin waxay og yihiin haddii maanta aynu halkaa maro oo aynu arrinkeenu aynu cadaysano wadada aynu ku joognana aynu raacno waxay og yihiin inay sidii Taiwan iyadoo kursiga jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa fadhida ayaa China kursiga loogu kiciyo China kula soo fariisay ilaa iyo haddana jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxay og yihiin xornimo qaad maalinta aynu inagu teen hello halka waxay noqonayaan dad aan wax ay haystaan jirin. wadada maanta aynu maray ee Israa'iil inay tahay wadadii ugu saxsanayd ee adduunka waa laba qaybood qayb inaga soo horjeeda iyo qayb waxina la ogol. qaybta waxay inaga soo horjeeda dawladaha islaamku waa 50 dal ay tiradooda lagu sheegaa si cad bay u diidan yihiin in ay Soomaaliland qarannimadoodu istaagto si cad bay u diido inoomana qarsan islaamnimadu ugu qiyaamay dabadeedna madaxdeedii halka goobta maanta go'ansay way raacdo tan bay qaatay waa sab marka la furay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland 60kii godkii aynu galay godka labaad ee aynu galay wuxuu ahaa ka lagu magacaabo wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waa god ay yaqaanaan reer koonfurka oo ay noo yaqaanaan iyo dawladda islaamka inuu lacagna inuu isticmaalaan waana wadada Israa'iil ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iminka maray waa wadadii ay ku gaar lahayn aqoonsiga ay ku gaar lahayn inay noqono qaran madax bannaan oo meel istaaga haddii aynu ku adkaysanana waa in taageerada waa laga rabaa. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعو سلامتهين MMTV يكوحديسا ريب البراء وحن لي أد بدي سودوينية كعمل فرنك سودوهذا حدي أن مانتها كتشوها سؤالها سؤاشة أرتمركو جورس وحن هرسينيا وحن حنبلينيا دمان jamhuuriyadda Soomaaliland goob kasta ay ku sugan yihiin populationkiisu ama dadkiisu ku sugan yahay ayaan hambalyeynaya waxaan u hambalyeynaya maalinta qarannimada ee 26 Juun ee aynu ku jiro xuskeedii waxaan leeyahay maalintaas waa maalin aad iyo aad inagu qiimo badan inagu weyn maalinta qarannimada ee waddanka leeyahayna waa 26 Juun waxaanu loo baahan yahay in aynu weynayno taas waa marka koobaad waxaan jecelahay inaan laba maalmood kala qalo oo aan mid walba waqti sida ay tahay oo aanay tashuush indiga gelin qarannimadeena iyo arrinkeenu iyo halkan u soconay halkan ka socona aanay tashuush indiga gelin waxaan doonayaa maalinta la 18 May maalinta 18 May iyo maalinta la 26 Juun in labada maalmood kala qeexo. maanta 26 Juun la yiraahdo waa maalintii qarannimada ee aynu xornimada ka qaadanay jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa 1960 waa maalin qaran iyadu shaki kuma jiro adduunkana way nooga diiwaan gashantaa. maalinta 18 May waa maalintii aynu iska kicinay xukunkii keligii taliska ahaa ee Siyaad Barre aynu qabsaday xornimadeennina boobay waa maalintii aynu iska kicinay. maalinta waxa ay Somaliland go'aan ku gaadhay in aynu la soo noqono xornimadeennii
luntay ee la boobay inaynu dib boorka uga turno oo dib soo ceshano waa maxay maalintaasi maanta la soo ceshanaya waa 26 Juun 1960 xornimadii taariikhda lahayd ayaynu dib u soo ceshanayna xuska leh ee xuska weyn leh waxa weeyaan 26 Juun maanta qarannimadii aynu leenahayna waa maalinta yay isku qaldamin labada maalmood maalintanna waa maalin taariikh gaar ah leh waa maalintaynu waddankeena ka kicinay cadowgii faqashta ahaa ee Soomaaliya inaga soo duulay ee waddankeena qabsanay ayay ahayd maanta xornimadana horey u qaadanay oo maanta qarannimada marka labada maalmood waxaanu u aqoonsanaynaa maalinta koowaad waxaanu u aqoonsanaynaa qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland 26 Juun maalinta 18 Mayna waxaynu u aqoonsanaynaa maalintii aynu soo kicinay cadowgii Soomaaliya labadaas aynu kala aqoonsanaynaa labaduna inay iska keen qaldamaan anigu waan ka digayaa laba taariikh oo aynu leenahay weeye laakiin way kala duwan yihiin haddii aynu nahno 18 May waxaynu tashuush gelinaynaa xornimadii aynu qaadanay 26 Juun oo ah wadada aynu doonayno inaan ku gaadhno aqoonsiga ayaynu tashuush gelinaynaa marka labadina taariikhood inay sidaa isku ahaadaan ayaan horta door bidaya qodobka kale ee aan maanta doonayay halka kan inaan iyana qalo waxa weeyaan dad waxaan dareemay ama aan arkay siyaasiyiin fara badan oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan oo waraysiyo bixinaya oo ku doodaya anigu Soomaali baana anigu Soomaali diid manihi waxa ay meel kaga dhacsan yihiin taariikhda iyo dastuurka iyo sharciga waddankan leeyahay inagu Soomaali manihi waxaanu nahay Somalilander taariikhda Somalilander waxa ay bilaabantay 1874 ayaa waddanka loo rajay Somaliland Soomaaliya waxa la yiraahdo oo jiray marka waqtiga ah ma jirin kontomiyadii bilaabantay taariikhda la Soomaali waxa dadka iska khalday dadka afka Soomaaliga ku hadla iyo Soomaali waxa la yiraahdaa waa jinsiyad aan qeexnayn laba jeer baa loogu talagalay in la qeexo ayaa adduunku ayaa loo talagalay marnaba way qeexmi weyday oo way cadaan weyday oo wax lagu sheegay bir dhaweed bay mintii labaad ahayd birgii dhaweeday kuwan maxaa la yiraahdaa federaalka lagu sheegaa ay doonayeen inay ka hadlaan jinsiyadda la yiraahdo Soomaali meel ay mariyaan iyo meel ay ku joojiyaan iyo meel ay ka bilaabaan midna way garan waayeen iyo hal ay ku qeexaan jinsiyadda la yiraahdo Somaliland waa jinsiyad qeexan oo dastuurkeenu qeexay kii xornimada lagu siiyay ee 26 Juun 1960 oo qeexay waxaan ku sheegay dadka haddii ay ka qaldanto jinsiyadoodu mas'uul ay ka qaldantahay jinsiyadiisu xagu ninka Soomaali ninka isaaqan ah ee Djibouti u dhashay ma yiraahdo de anu Soomaali baan waxa Djiboutiyaan baan ka Kenya ku dhashay ee Soomaaliga ah ma yiraahdo de anu Soomaali baan waxa Kenyaat baan laba qolo way ka qaldantahay arintoodu dadka reer Somaliland waliba kuwa waaweyn dadkooda waaweyn way ka qaldan tahay jinsiyadaas qodobka afraad ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland firqadiisa koowaad ayaa sheega oo cadeynaya dadka degan Jamhuuriyadda Somaliland dadkii 60 iyo intii ka israyd in loo yaqaano wixii ka israa in loo yaqaano Somalilander marka waxay niman badan oo dadka ay ka qaldan tahay baan ku leeyahay marka dadka la yiraahdo Ethiopia qolada degtay ee Soomaalida way qaldantaa dhalashadooda ama jinsiyadooda way Ethiopian Afrika hadlan waa Soomaali inagu waxaan Somalilander Djibouti waa Djiboutian Kenya waa Kenyan ko jooga ee NFD jooga waxa la Soomaali oo aynu inagu hadaad qofku marka uu sheegto ninka siyaasiga ah ee doonaya dal inuu hogaamiyo jinsiyadiisu ka qaldan tahay uu luusan yahay siyaasi awgeed waxaan leeyahay arrinka aad looga digtoonaado oo qodobkaasi dadka ha loo cadeeyo hana lagu dhaqmo dastuurka waxa uu sheegay iyo wixii aynu ahayn
arrin kalaan maanta doonaya inaan sheego laba taariikhood iyana aan rabo inaan kala caddeeyo labada taariikheed ee aan kala caddeynaya waxa weeye 26 June iyo 1 July 26 June waynu soo qeexnay oo waa maalintii aynu xornimada qaadanay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay xornimada qaadatay 1 July horta waa maalintii layna qabsaday maaha maalin aynu midownay maaha waa maalin layna qabsaday waa qalad in aynu u aqoonsanaa maalin aynu cid la midownay waxaynu israacinaynaa laba kelmadood oo aan isqaban sharci midow aan sharci ahayn waxaan sharci ahayn bini aadamku ma soo qaato wax sharciyu soo qaataa waa maalintii layna qabsaday wixii aynu inagu sidanay iyo wixii aynu ka ahaynba lala wareegay lagu dhigay nafteennina gacanta lagu dhigay maalintaas ahayd waxaan doonayaa inaan u sheego muxuu arrinta uu siyaasiga Soomaaliya og yahay laakiinse siyaasiga aan Somaliland aanu ogeyn siyaasiga Somaliland ma oga waxa ay Soomaaliya haysataa inay wixii aynu inagu lahayn oo Soomaaliya aanay xornimo ma qaadan ma jirto maalin ay qaadatay xornimo oo cad oo adduunka oo la yaqaan oo muxuu aqoon cad ma jirto oo la xusi karaa oo xusi lahayn haday garanayaan waa kuwa 26 June dib ugu soo noqday ee ku soo wareegay waxaan idin sheegayaa oo aan sheegayaa maalintaas horta kursiga ay fadhiyaan jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waa kii Somaliland hawada aad maqashay iyo 252 iyo lamarada aan isticmaalay aynu leenahay dhammaanteed waa wixii Somaliland wax ay leeyihiin waxay og yihiin haddii maanta aynu halkaa maro oo aynu arrinkeenu aynu caddaysano waddada aynu ku joognana aynu raacno waxay og yihiin inay sidii Taiwan iyadoo oo kursiga jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa fadhida ayaa muxuu China kursiga looga kiciyo China kula soo fariisay ilaa iyo haddana Taiwan waa ta imka bila jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa qoyska haysan waxay og yihiin inta kursiga laga fariisay laga qaado in ay sidii Taiwan noqonayaan bilaa sharci oo ay bilaa aqoonsi noqonayaan kumeel gaarka inaga ka saaray waa ogtii hawada oo dhexleynoogu hay inaga leynoo hayay oo inaga saxiixeenaynu ku gudbinay waxa ogsoontii kursiga inaynu la fariisto saxiixa Jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu ku tagay dhammaan wax kasto mudane maareeyo hore kayd wax kasto oo qarnimadooda maanta aasaas u ah ama jiritaankooda wadanka waxay ku dhaxleen midowgii aynu la midownay waagaas waxay ku dhaxleen dad wixii ay siteen inta laga qaaday lagu shaqo tagay weeyaan wax xornimo ma lahayn dad la haystaa bay haayeen waxay ku jireen wakiil jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa haystay maalinteenu inagu u tagnay Somaliland u tagtay wakiil jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa Talyaaniga ayaa Soomaaliya haystay maanta oo aynu joogno wakiil jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa haysta hadda jooga jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxay ogyihiin xornimo qaadan maalinta aynu inagu teena hello halka waxay noqonayaan dad aan wax ay haystaan jirin way og yihiin iyagu laakiin inaga siyaasigeenu ma oga waxay maalin walba aynu la taaganahay laba dalo midoobay maynaan midoobin manaynaan muxuu ishig dad muxuu ishig aan xornimo haysanba waxayna qaatay oo haysta wala qabsan dad aan xornimo lahayn oo aan muxuu dawladnimo lahaysan oo aan waxba haysan baa teeni inta qabsaday oo muxuu ishig wadanka hayna haysta ilaa iyo haddana kuraasadeena fadhiya waxaan ay la waalanayaan marka aad maqasho markay maqlaan Somaliland baa kursi heshayna ama cid baa aqoonsatay waxaan la waalanayaan marada u tuurayaan wax kala ma waxay og yihiin waxay haystaan waxay intii tahay
qodobka markaan intaa kaga nimanno mudane maareeyo hore Kayd Cabdilaahi waxa jirtay dadaalo kala duwan oo Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay intii xukuumaddan haatan timi ay ka sameysay arrimaha dibadda iyo arrimaha aqoonsiga bal arrimahaasi mudane maareeyo hore Kayd Cabdilaahi sidee kula muuqataa aqoonsiga Soomaaliland ay ka heshay waddanka Israa'iil iyo sidoo kale kuwa kale ee la rajeynayo bal arrimahaasi aragtidaada ku aadan arrimaha ictiraafka iyo aqoonsi raadinta Soomaaliland sidee baad u aragtaa mudane بسم الله الرحمن الرحيم إن قلت آديات ما سنتهي وحان وأركا إن وضد مانتا هنو مري إسرائيل إن يتهاي وضد وجوس حسنيد أدوك والله بقى يوض قيب إنك سهر كده هي قيب وحنا لاقول قيبتها إنك سهر كده دولة الإسلام وعشان يكون تطلع أي ترود الوشجع si cad bay u diidan yihiin in ay Soomaaliland qarannimadoodu istaagto si cad bay u diido inoomana qarsan dowladaha reer galbeedka hore waxa u dhacday 35 dal ama 25 dal oo Yurub ka tirsan ayaa go'aansaday in ay aqoonsadaan Soomaaliland sida uu sheegay weeyaan adugu ka maqasheen wasiirka arrimaha dibadda ee hore ee dalka Turkiga iyadoo aqoonsigii Soomaaliland loo fadhiyo oo 35 dalba isku raaceen oo sida ayuu wuxuu inagu isaga afkiisa ka waranaya waxaan ku qiyaamay waxaan ku idhiyay islaam baynu islaamnimo inagu qiyaamay dabadeedna madaxdeedii halka goobta maanta goonsay way raacdo tan bay qaatay waa sab marka la furay wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland lixdankii godkii aynu galay godka labaad ee aynu galay wuxuu ahaa ka lagu magacaabo wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waa god ay yaqaanaan reer koonfurka oo ay noo yaqaanaan iyo dawladda islaamka nagu lacagna nagu isticmaalaan waana halka marka maanta wadada Israa'iil ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iminka maray waa wadadii ay ku gaar lahayn aqoonsiga ay ku gaar lahayn inay noqono qaran madax bannaan oo meel istaaga haddii aynu ku adkaysanana waa in taageerada laga raba waxa inagu badan dad Soomaaliland ka tirsan oo aan jeclayn waddankani inuu noqdo qaran madax bannaan mar walba marka ay noo soo dhawaato waddo kale inuu furo waxaan leeyahay dadka ha laga digtoonaado arrinkan ha laga digtoonaado wadada Israa'iil ee aynu marayna maanta waa wadadii aynu ku gaari lahayn aqoon qarannimada waxba ma mudna inaynu ku guuleysano waxay la qeylinayaan in la oranayo ka kaca sabab uu ogyihiin in la oranayo ka kaca oo ay ka kacayaan waa Soomaaliya arrinka ay la qeylinayaan ay la waasheen waa inta Israa'iil waa dawlad awood u leh in ay wax badan la qabato waana ka dhab aan wax la qabsan ayaan leeyahay dawladaha reer Yurub way taageerayaan oo aqbal laakiin ha ka filna kuwan islaamka sheegtay ee qoladan islaamka dal ay aqoonsadeen oo jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ku jira ma jiro Turkiga wad badan bay Qobrus qaybta xagiisa xigta aqoonsaday keligii baa aqoonsan qaybta oo Greek haystana waa dal ka tirsan midowga Yurub waxaanu leenahay wadada ay noo banaani waxa weeyaan ee aynu qoyska taa aynu maray iyo reer Yurub oo aynu dabada qabsano laakiin tan kale ee ayna halkan waa wada aynu ku lumno horena ugu lumnay inaynu dib ugu lumnaa islaamnimo mar laynagu qiyaameyay iyo walaalnimo mar lagu qiyaameyay mar kale in lagu qiyaamaya horta waa nacasnimo waxaan leeyahay marka arrinka hala taageero waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa way ka soo baxday siyaasadda arrimaha dibadda waddo wanaagsan oo ka marsa waxa ka qaldan siyaasadda arrimaha gudaha waxaan leeyahay madaxweyne labada siyaasadood siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda arrimaha dibaddu waa laba siyaasadood iskaaba waxaan ku leeyahay sida aad uga shaqaysay arrimaha dibadda ta gudahana uga shaqee dad ka kasbada dad ku kasban kara ummadda
oo ummadda muxuu ahaa kula maamuli kara oo ummadda dowladnimada kula dhisi kara waad haysataayoo xisbigaagana way ka buuxaan agtaadana way ka buuxaan samayso laakiin waxaan kuu sheegayaa siyaasadda arrimaha guduhu madaxweyne way naga qaldantaa waynana wax yeelaynaysaa haddii aynaan halka ay joogto aynan gaari mayno yoolka aynu leenahay si aynu yoolka aynu leenahay u gaadhno waxaan codsanayaa madaxweyne waan kugu celinaya inaad muxuu ahaa ay sheeg siyaasadda arrimaha gudaha wax weyn ka qabato ayaan kugu buurinayaa arrimaha dowladda boqolkii dadka reer Somaliland waxaan leeyahay siyaasadda arrimaha dowladda way saxan tahay wadadii saxdahayd baa marsa hala taageero hana la xoojiyo